madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa casuumaad degdeg u fidiyay ismada dhaqanka SSA Khaatuma kulan ka dhaca wadanka Jabuuti sida ay xaqiijinayaan warar madax bannaan oo laga helay dalkaasi. Lama garanayo ujeedka cusub ee wada hadalka uu ka rabo Ismaaciil Cumar Geelle maadaama SSA ay tahay maamul ay dhiseen dadka deegaanku markii laga kiciyay maamulkii cuqdadeysnaa ee Somaliland. dadka wax dorasa ayaa sheegaya in hubkii lagu duqeynayay Laascaano 9 bilood oo la soo dhafay laga keenay wadanka Jabuuti ayna qayb ka ahayd dagaalkii lagu kala adkaaday ee Sool. ayaa sheegaya in ismadu ay kulankaati aadistiisa ka tashanayaan iyo waxa ka dhalan kara kii Muuse Biixi heshiiska la galay wadanka Itoobiya waxa xumaaday cilaaqaadka Jabuuti iyo maamulka Somaliland maadaama haddii heshiiskaas hirgalo ay xirmayso dekadda Jabuuti wax badan iska bedelayaan arrimaha badda cas iyo ganacsigeeda. kaliya taliyaha Jabuuti intii dagaaladii Gooja Cadde socdeen wada hadal dhowr jeer ayuu ugu baaqay ismadaas dhaqanka iyo Somaliland kulankaas oo ay iska diideen ismadu inay ka qayb galaan iyadoo duqeyn ku socoto shacabka reer Laascaanood.